soo sheegaysaa maxay kala yihiin in xoolaad iyo oon xoolaad labadaas soo kala sheegaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wa barakaatuh kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiin baddaawadayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii su'aalaha rabadaanta oo aynu maantana mar kale ka qayb gelin doono daawadayaasha ama ka qayb qaatayaasha ku nool magaalada Boorama iyadoo mar kale ay maalgelinayso shirkadda isu socodka dadka iyo alaabaha ee Sombeder oo ka shaqeysa magaalooyinka Wajaale iyo Hargeysa markay noqoto dalka gudihiisa iyo magaalooyinka kala duwan ee dalkaasi Itoobiya faahfaahin ku saabsan goordhow ila soco hase ahaatee su'aasha ugu horeysa aynu soo jeedino waxaan u yeedhayaa ka qayb qaatayaasha ugu horeeya ee maanta ka qayb gali doona barnaamijka halka soo joogso magacaaga Cabdisamed Maxamuud Cabdisamed waxaad dooranaysaa 1 ilaa 5 hal tiro ka dhex dooro 1 ilaa 5 waxaan doortay 1 ilaa 5 simple mido laba dooratay waayahay halka su'aashan lambar 2 ee ku soo baxday dawaa su'aal xagga dhaqanka seed isku tiilay ana xoolaha iyo deegaanka iyo waan si fiican maadaama Soomaali hayde si fiican su'aashan waxa ku leedahay waxaad sheegtaa in waa maxay in xoolaad iyo oon xoolaad in xoolaad waxa weeyaan dufanka sida subaga haye barida haye kuriska marka xoolaha la kala tilmaamo صح in iyagu waa in xoolaad in xoolaad weey haye oon xoolaadna waxa weeyaan caanihii iyo maraqii iyo waxa weeyaan wala hada eeg waxba isku wada laaqaysaa aad isku wada laaqaysaa si aynu yar kala saarno waayo waxa la su'aalo aqoon kororsiga waxa loo baahan yahay sideeda loo barto marka wixiiba waad sheegtay laakiin waxa ay inta iyo oonta waa ina si fiican u kala saartaa sida imika isugu laaqdo kale hay isugu laaqin marka intana waa maxay oonta xooluhuna waa maxay intu waxa weeyaan subagide intu waa subagii kow intuna waa caanihii waxa weeyaan wixii ka soo hadhay intu يعني انتوا subagide waa subagii kow dufankeede ee dufanka ahaa intuna waxa weeyaan haye caanihii waxa me horta soo dhaweysay laakiin su'aasha maadaama ay aqoon kororsi tahay aad iyo aad baad maadsantahay mid caadi haddii la yidhaahdo barnaamijka marka dambe siyaas qaban doonaa soo dhow markan ka qayb qaataha ku xiga ayaan jecelahay inaan soo dhaweeyo magacaaga cabdi wasac 1 3 4 5 mid doora kow waaya adu kow baaba dooratay waa su'aal fudud oo diiniya arrimaha diinta ma taqaanaa waxaad sheegaysaa maalinta qiyaamaha weliba maalinta qiyaamaha laga dhaqaaqo ya dadku dee janno iyo jahannamay ku kala aroorayaan hogaamiyaha ugu weyn ee hogaaminaya waxa alla waxa cadaabta ku arooraya magaciisa sheegaysaa abulahab ya abujaal abulahab ya abujaal labada midna ma la koodu dhaweyso adoo mar hadda halka sheegtay waad u dhaweysay hay nin kale oo ka weyn soo raadi oo daalin weyn ah ya banu aadamka soo qaban banu aadamku kamid yahay sida aad u sheegtay ma taqaanaa abujaal iyo abulahab iyo saasoo kale oo bilaadinku kamid yahay والله way adag tahay taas weeyahay marka kale aad ka faa'iideysan doontaa magacaagi muxuu ahaa Xaaji Koosar Abana Cismaan Xaaji Koosar oo ku magac dheer Moolar gees si fiican halkan maanta waxa ku haya su'aalo waxa jeclaysatay inaad ka qayb gasho Soomaa yes weeyahay waxa ku siinaya waxa doorataa 2 may waxa doorataa 3 4 5 su'aasha shanaad baad dooratay su'aasha shanaad waa su'aal madaniya waa su'aal caalamiya arrimaha caalamka iyo dunida iyo waa kale aqoon badan baad u leedahay si fiican baad u kala taqaanaa waxay su'aashan ku leedahay waxaad sheegaysaa goormuu burburay midowgii Sofiyeet midowgii Sofiyeet wuxuu burburay 1983 saddex iyo siddeetankii bal mar kale hataa ii keeda mar kale 95
95kii may su'aashaas mar saddexaad fursad ku siiyo haddii aad ku nasiibkaaga ku siin karo midowgiisu fitiso maaha kajaasistaan iyo baakistaan markii la kala wixii la wada kala goostay wada baaxistaankiiya edhiyadii baa meelaha edhitriga edhifaarkii meelaha sax waayahay may insha Allah marka dambe haddii la yidhaahdo aad ku guulaysan doontaa su'aasha magacaaga faysal maxamed almi yaa faysal maxamed almi faysal 3 iyo 4 mid doora afar waxaa kuu soo baxday halkan su'aal aan u malaynaya malaha inay su'aashii meeshaba ugu sahlanayd tahay waa su'aal aad iyo aad u fudud oo diiniya waxay la xidhiidhaa xagga soonka nabigeennii maxamed calayhi salaatu wasalaam imise sano ayuu soomay bismillah hadda su'aasha isku dayo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam kolay 13 ramadaan inuu soomay baa filaya insha Allah 13 ramadaan intuu madiina joogayba muu soomay kolay intii uu maka joogay diintu waxay si sira nabiga waa laga soo saaray sax haa dibadna madiino laakiin xilliga la inagu waajibiyay madiino oo dhan ma ahayn bal mar kale ku yar nasiibso bilood oo aad u dhadhoweysa waayahay bal haddaan mar kale isku dayo waxaan filayaa inay 6 sano ama 6 ramadaan ay haye insha Allah marka dambe ayaad su'aasha ka jawaabi doontaa hooyo ma fiican tahay khayr iyo nabad alxamdulillah hoo وهدية ها هي ما شاء الله هي ركض عاد دين تحمبارس آمين دور من وده هي دور كل جالسة آمين إن شاء الله هي أدب ما سنتع لك وحنا ملايين يعني وجهي سان هراء واركي أصحاب برا بيشدروا ويسوي شيء دونا بريله سوار كيل أما تاني يجوا كسوي شيء نادو يسوي شيء بل واقع واركي سوما كور ما تكاي بيش برنامج كا درات به ويا نصيب كا بعد كسوي عليه ما تهلك وحنا كوجو هيا waxaa kuugu hayaa su'aalihii ka faa'iideysigii su'aal baa ku weydiinaya jawaabtun baad sheegaysaa magacaagii muxuu ah samatar waxaad sheegaysaa ninka hogaaminaya qiyaamaha inta jahannamo ku arooraysa magaciisa ninka hogaaminaya مسعود دجال yaa مسعود دجال dijaal bay bal marka lagu laqo معاتر سواش قيام waxaa jira ma taqaanaa quraanka iyo sunankuba waxay sugayaan sheegayaan marka macsharka qiyaamaha laga dhaqaaqo ee janno iyo naar loo kala kacayo waxa jira nin yaani daalimkii dunida ugu weynaaya oo hogaaminaya inta jahannamo ku socoto waxa hogaaminaya wayaraadka timaad ya waxba dhib male insha Allah ninka jahannamo umada ku hogaaminaya lacnada korkiisa ha ahaato inaan su'aalaha ka faa'iideysiga inaan geliyo su'aalaha ka faa'iideysiga ku weydiinaya xagga diinta xagga arrimaha caalamka iyo xagga dhaqanka midkee ka weydiiyaa xagga diinta ku yar fiican xagga diinta ay weydiin xagga diinta ku fiican way su'aasha xagga diinta aad ka faa'iideysatid waxa ku leedahay nabigeenu kaleey salaatu wassalaam imisa sana ayuu soomay رمضان أبو حن سجال رمضان ما نمر سجال رمضان محو صومي سجال رمضان ما سجال رمضان وأم ملايين ساعة ساس بأم ملايين حتى أوفير حتى أم ملايين سما لها واد خلطة ما سجال كم سنة ما هو بتاع ويا همبليو وحتى هاي كقيب قاتها كجولستي سؤال جوابتي ده النبي جل عليه الصلاة والسلام intii soonka la waajib yeelay wuxuu ka soomay cimrigiisu ku simay waa 9 sano dadkeena qaar fursado ka badan baynu helaa 9 ka badan baynu helaa oo haddana dad badan ay tayaan marka waxa ku siinaya abaalmarinta waxa bixinaya iisho sheeg shirkadda isu socodka gaadiidka dadka iyo alaabaha waxa la yiraahdaa Sombeder wajaale iyo Hargeysa haddaad u baahan tahay waad ku boodaysaa saacad kasta waa la baxaa Ethiopia hatta haddaad rabto inaad alaab dirto jigjiga gooday qabri dahare intaba waad tagaysaa haddii ilaahay oo hadiyadaas kuugu talagalnay halkan waxaan ku haynaa barnaamij su'aalaha waa ka faa'iideysi haddii su'aashan aad garato jawaabteeda waxaan ku siin doonaa abaalmarin bixinaysa Sombeder إن شاء الله su'aasha waa su'aal dhaqana
وسؤال إن كستون دقة كسكو فعلين سكوا دقة كسكو فعلين وضوض وعادي وعادي هديت كيلو إذا دمله سؤال شو كلها بعد شيء كذا محل هذا إن حولات إيه أون حولات محي كليه إن حولات إيه أون حولات إن حولات ووحيد إن مركا أن أرجع لقاه لوين الصبغ جيو حوين إن حولات ها مركا الصبغ جيو iyo waxa weeyaan subaga iyo maxay hay'ada kuriska waxa weeyaan way waa subaga in xoolaha waxa weeyaan waa subaga hilibka marka la shiilo waxa weeyaan si wadu garanaysaa sina wad isku yar wada qasaysaa in xoolaha waa subaga iyo maxay hay'ada xaydha iyo xaydha ha iyo maxay hay'ada dhuuxa weeyaan صح وياي مال أدو هرت واتسون دويسي صح لكن سؤال ما دام ويا كفايديسي تاعي إلى قرار شنو ويا إلا الصحة الرباط بدو ما تصنع مركز دمبات دي لا هذا تونا المركز واحد هالكني لبدا السؤال هذا كسر فايديسي إنه كهر وعن شعلة هاي إن عندي بير شاعي هرتا لما سؤالي هراء أردن سيدي مركب اللوسو جرن أي واحد شفت سؤال أنا لا يهات اللوسو جرن oo kamid ahayd barnaamijkii hore ee ugu dambeysay som beder su'aashaasi ayaan rabnaa inaan uga faa'iideyno dadka su'aasha waxay ahayd hore ee ahayd dugsigii ugu horeeyay goorma laga dhisay magaalada Boorama dugsigii buuse ahaa dugsigu wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Qaadi oo dugsiga loo yaqaanay Elementary waxa loogu bixiyay dabca waa er Ingiriiska midoo Elementary waa dugsigii hoose dhexe magaaladu bay lahayd ee kaliya waxaana la sameeyay sanadkii 1946 sanad kadib markii uu dhamaaday dagaalkii koowaad ee adduunka ama 2 sano kadib markii ay balwadu ka bilaabatay ma taqaanaa banka gariyaad ee gobolka Awdal markaasi baana la sameeyay waxaana sameeyay odayga imika loogu magac daray Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Nuur Qaadi oo herar iyo Itoobiya wax ku soo bartay oo ahaa aqoonyahan xagga diinta iyo xagga maadiga aba oo hogaamin jiray magaalada aad iyo aad bay markaa su'aashaasi idin dhibtay laakiin maanta wixii ka dambeeya su'aasha dhammaan waxa la wixii ku jiray Facebook iyo TikTok jawaabta saxda taasi qaadanayaan markan maanta su'aasha maanta aad ka soo jawaabaysaan waa su'aal walibana dhaqanka la xiriidha waxaad soo sheegaysaa maxay kala yihiin in xoolaad iyo oon xoolaad labadaas aad soo kala sheegaysaa marka si aynu u fahmi karno ama dadku ay uga faa'iideystaan yar kala saar in xoolaad marka tiraahdo sidii warqadda imtixaanka loogu yar qoriyay ama xagga komadka sidii waxaad u yar qortaa kala baxsan ha isku dhex darin waa wax isku eegay marka hadii la yiraahdo aniga iyo adiguba inaan wada faa'iideysanaa rajaynaya barnaamijkeena guud ahaan maanta waxa soo saaray Siraaji waxaana duubaya aniga Ibrahim Suxufiya tan duubu kulmi doono barnaamijka lamid ah inta ka horeysay idil ahaantii waxaad ku sii dhaafayaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh